sahanka socdaal ee lagu sahminayay u diyaarinta deegaanka Maaxay ee hoostaga degmada Warshiq ee gobolka Shabeellada Dhexe in ay noqon karto gegida cusub ee Diyaaradaha Muqdisho waxaa halkaa ku tagay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xildhibaano ka socday labada gole ee baarlamaanka federaalka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle. ujeedka socdaalka mas'uuliyiintaas ayaa ahaa qiimeynta mustaqbalka dhow halkii noqon lahayd airboorka caalamiga ah ee Muqdisho isla markaana laga hirgelin lahaa mashruuca gegida cusub ee Diyaaradaha Muqdisho. ugu horeyn xildhibaan Cabduqaadir Carabow oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya deegaan doorashadiisuna ay tahay gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in deegaanka iyo bulshadaba ay diyaar u yihiin in airboorka caalamiga ah ee Muqdisho mustaqbalka laga hirgeliyo deegaanka Maaxay. waa kaga mahadcelinaa dadkaas deegaankeena oo annaga aan matalno waxaan leenahay waa mahadsantihiin biseelkiina iyo sidaad u garab istaagtaan dowladnimada waa idinkaga mahadcelinaynaa mar walbo. wasiirada waxaan leeyahay waa aragtaan wasiiro dhulkaan cid idinku haysato male dhulkaan haddii laga dhigayo madaarka cid bini aadana oo ishor istaagayo ma jirto wax la deegaameynayo oo deegaan laga dhigayo ma jirto danta Soomaaliyeed ayaa ka weyn wax walbo. deegaankan haddii uu helo airport dadkan ummadda Soomaaliyeed oo ku farxayaan ayagana wax badan ay ka faa'iidayaan. waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto meesha ugu habboon ee noqon karto airportka cusub ee magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Finish ayaa shaaciyay in mustaqbalka dhow garoonka diyaaradaha aadan cadde laga hirgelin doono deegaankan Maaxay oo ka tirsan Shabeellada Dhexe isla markaana 45 kiiloomitir u jira magaalada Muqdisho. hadday aan lahayd xagga yani bii'ada iyo amniga iyo hadday aan lahayd sinaanta dhuleyd iyo adeegiisa hadday aan lahayd u dhawaanshaha badda hadday aan lahayd u diyaar ahaanshaha bulshadeed ee dadka deegaanka degan hadday aan lahayd halkan marka dhan walbaba ka fiiriye waa meeshii aan u xulnay annagu aragti ahaan inay noqoto airboorka mustaqbalka dhow ee magaalada Muqdisho. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Salaad Omar ayaa shaaciyay in garoonka aadan cadde uusan xilligan xamili karin xaaladda airboorka isla markaana uu noqday mid cariiri ah. sida aad la socotiin airboorka hadda aan isticmaalnay ee aadan cabdulle ee magaalada Muqdisho wuu soo yaraaday capacity looga baahnaa ma xamili karo marka waxaa muhiim ah oo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr uu mandate nagu siiyay in aan soo daraasadeyno meeshii laga dhisi lahaa ay sidii loo dhisi lahaa airboor cusub waxaan aad ugu faraxsanahay maanta qaybteeda koowaad inaan u taaganahay. dhankiisa wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa tilmaamay in qiimeynta halkan loogu sahminayo inay noqoto garoonka diyaaradaha aadan cadde mustaqbalka dhow ay markaasi tahay meel ku habboon. airportyada adduunka waa laga saaraa magaalada meel kale la geeyaa meel fog maaha horta anagu shakhsiyan meeshan aad baan uga helay baddii iyo barigii bay saaran aad bay u qurux badan tahay waxaana maskaxda gelin kartaa airport halka lagaga soo haadayo xaggaana lagaga soo haadayo lagu soo degayo oo aad u qurux badan haddadaas aad mudaaba in diyaarad ku degi karto sida uu yahay marka iyada oo aanan ka sii hor dhacayn laakiin inta dhul arkaya sinaanta dhulkan siduu yahay iyo siduu badda daafta ugu hayo ee halka dabasha wanaagsan uga soo dhacayso ee buurtu ku gadaaman tahay buurta yar aan dheerin ku gadaaman tahay oo iyaduna gabaad diyaaradu ku gaban karaan aniga aad iyo aad bay ila qurux badan tahay. ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa boogaadiyay sahanka mashruuca gegida cusub ee Diyaaradaha Muqdisho waxaana uu ballan qaaday in dowlad goboleedka Hirshabeelle deegaankaasi ay ka ilaalin doonto in bulshada ay deegaamaysato. annaguna horaan u sahminay maantana inaad sahamka qayb ka naqatiin inaad nala qaadateen aan aaminsanahay aad iyo aad aan u soo dhawaynaynaa waa dhul aad u baaxad weyn sida injineerku sheegaba wuxuu codsaday inaan deegaankan dhulkan airportka u dhow wax deegaama laga samaynin waxaan ballan qaadaynaa in alla intii la rabo oo dhula iyo intii ku filan inaad idinku calaamaysiin tiraahin intaas yaan loo soo dhawaan inaan la deegaameynaan ballan qaadaynaa. Ibraahim Axmed TV Universal magaalada Muqdisho.